horta kiiska markaan kala qaado kiisku asaga dacwada uu furtay nin kale uu ku furanayaa waa nin kale waa buda gooni u tuman waa nin asaga uu leeyahay waa ii soo handaday walow waxba aan lagu dhifan oo nabarra ku oolin waa handadaad waa laysoo handaday weeye asagu nin kale uu ku furantay laakiin asaga dacwada ku furanaa waxay tahay laba kiis oo aad u culus markii Yurub aan joogno ognahay xaaladda Yurub laba kiis oo aad u culus ku furo labadaas kiis waxay kala yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن الدعوة يا رسول الله هذا ومركلة يولالكنا هذا كرامة هلك طبعا قد دعونا سنة وبرتن يوتيوب كل هذا كرامة هدي أي تايمر كجوري سيدنا صوب وقتفضل سبسكرايب تنقول شرف ريح كمبلالك عس si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ay soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee aan halkan kusoo gudbiyo haddii aad hore inoola joogtayna aad iyo aad baad umahadsan tahay madaxa ayaadna inoo saaran tahay muuqaalka laygta waa u muhiim kow gabadhii oo maaragtay cunugii nuujinaysa inuu bannaanka keenay oo halkaas gabadhana gooni ay dacwada u tahay baybiga yarkaana gooni ay u tahay waa laba kiis xataa gabadha iyo cunugay nuujinay waa laba kiis kiiska saddexaad oo ku furana waxay tahay ilmo asagu awsa dhalin oo nin kala dhalay oo uu adeer u ahay ayuu bannaanka keenay ilmahaas mid kamida qaangaar maahan mid kamidana waa ilmaha qaangaarka ah ninkan marka waxaad moodaa aad iyo aad inuu badda dhex jiifo sharciga Yurub dhex yaala qaasatan Sweden dad badan ka wareystay oo yaqaana waxay sheegeen iskoolka dhexdiisa ah marka maaragtay aad ilmaha saxiixa in la weydiinayo cunugaaga picture ma ka qaadi karnaa picturekaas ma dhigi karnaa macnaha iskoolka dhexdiisa bal fiiri yacni marka haddii uu ilmo yaryar public kadi keenay ilmahaas dacwadooda waxaa iskale aabahood ninka dhalay wiilashaas dhalay ayaa iskale inuu dacweeyo sida aan maqlana waa jirta arrintaas waa ku furan tahay waxaa kale milyuun ayadu waxay xaq u leedahay ayada iyo baybiga oo maaragtay ayadoo baybi nuujinaysa ay keentay inay dacwadaas ka gasho ilmaha kale aabahooda u taagan ninkan marka waxaad moodaa arrintaas hadday ku cadaato يعني حبس إلى 6 سنة وسولي فيا 6 سنة جرانتيد وهذا الكاس إيجا قر 6 سنة وجرانتيد وايو أرنتان أنا هذا كهر هراء وجلاي أنا أرنتان هراء وجلاي أو قفص وكله وجود عويي إنتان عيال يريان دلاي ها إنت عيال يريان دلاي أيان قفضوا مرهن تسكون عنا يوحي كان تبناك الدعوة ولا أوجا ماشي قاعدي ما جرت إلا أي طول يا إلهي مارت دعوة الدب نوجا درو جري أي كان عادة المها وممنوع إن بابل كذا لكانه ولما المها أن كان جارين بابل كذا إلا كانه وممنوع يوروبي أمريكا بقى وكب حي سلطان ولي كافر دمان وحوي ويل كمركا ريكوردين بقى لو سمي والله دوبي عدكيس wiilku wuxuu joogaa isla Sweden buu joogaa waliga hadaad qof wax dilaysan qofka media iyo waxa hadaad ka tiraadid kiiska waad ku jirtaa wiilkaas haduu macal waduu sadar ilaahay u dhintaba filinka waad ku jirtaa marka waxyaabahan Yurub dadku mala systemkeega lama socdo iyada waxay ku dacwoonayso aan dhageysano waatan isaguna kiiska uu ku jira waatan waa kan kiiskiis مليون سلامي horta maxaa lagu dhahaa ii sheeg qofka markuu waalan yahay ama uu maskaxda wax si ka yahay horta ilaahay ha caafiyo kun qofa ku fadhidin af faataxa u mara wixii waalan Allah ha caafiyo anigu talaan ku dirsanaa marka milyuun waxaa joogtaa wadan sharci leh wadanka Denmark laha ciyaar ma taalo صح Sweden ama masaakiin aha oo wax la barbari karaa oo maxaa la dhahaa ishfood cadwa ku salaamay Sweden la barbari kara oo maxaa la dhahaa isna Denmark isna ma taalo Danishka waa u dhamaatay qofka hadoo aad dacwaysid oo special caruur ah ku dacwaysid waa u dhamaatay marka walaalay macaani waxaan ku dhahayaa waxba ha ka hadlin afkaaga qabso sharciga wadan yaala nidaam wax Denmark waxay ku jirta 40 daqiiqo 30 daqiiqo tareenkaaga ku dhac tag waxba ku wareeriba inta iska dheh ninka xaq uma la cunug inuu ku hadlo
cunugu xuquuqu leeyahay social service baa u shaqeeya maxaa la dhahaa ii sheeg Denmark sharci baa ka jira nadaamaa ka jiro soo ani waxaa iga tala ah afkaaga nyamta iska dheh waxa la dhahaa hala hadla wixii wax kuu duubaya ha u duubaan ha u record gareeyaan milyuun asxaab waka ta ani sheega taasa isagina recording buu haystaa gabdhihiina recording bay haystaan askartii hadda dacwadii way qabatay mid baan hadaba idin hayaa gabadha milyuun la yiraahdo waa gabadh fariida weey waxa ilaalinaysaa ilmaheega iyo waxa ilaalinaysaa aabaha ilmaha dhalay ayay kala ilaalinaysaa bal hadalka ay ku hadashay la dhageysta waatan ma rabee balaayadu dhashay mu iga dhamaada waqtiga war dacweyniyo xaq u malay inuu sawirka caruurta bixiyo caruurta ilmaha yariiska milyuun waxay leedahay gabadhan gaadsan oo gabadhiin la hadlo walaalayaal waxa fiican haddaan Soomaali nahay inaan wax kala dhex galna ay nagu fiican inaan dadka dab isku sii gubno ma labada qof waa laba qof oo isqabay sawiraan cajiib oo taariikh la galay qaabka ay u galeen aad la yaabaysid aan ku tuso hal sawir oo macaan oo ay galeen actionka ay sameeyeen u fiirsada bal ilaah baa nagu dhashay isku jecelaayeen walaalayaal fiirsada iyo qaabka ay isku haystaan sida xubbi aad baan ku jecelahay waliba dadka sawir ka qaadaya waxa lagu tilmaami karaa qoyskaasi qoys dhisan buu ahaa laakiin haddana qatash way dhacdaa dhibaato male iyadu waxay leedahay waar dooni maayay leedahay waxaan iga daa ashkatadiisa ilmaha isagaa dhalay mana doonaya ashkatadiisa laakiin mid baan inii sheegay walaalayaal dad ilaahay waxa naga dhiga muslimiina dabka inaan sii shidno oon sii ololino ma labada qof iyaga isqabay iyaga ubad isku dhalay kaliya waxa fiican inaan kala joojino odhano ninkana lagu yiraahdo dadkiisu warwad qaldan tahay ee gabadha ka aamus iyadana la yiraahdo milyoonay wiilka inta leegbo ilaahay ka siiyay walaal iska aamus ka bacdi dadkan cadaanka sheekadu dhexdeena ay ku dhamaanaysa laakiin dadkan cadaanka hadii ashkata loola tago oo la yiraahdo ninkan sidan uu sameeyay oo isagina sidan uu yiraahdo u fiirsada sawirka u fiirsada maxay niga dadku markay arkaan maxay niga muuqda sawirka ilaah baan inagu dhashay maxay niga muuqda lamaana aad isku jecel oo saabago isu galiya walaaliya oo isku dil ooyaya marka mid baan ni sheegaya Soomaali waxa jirta dad la yiraahdo jacayl xaasid ma way ma maqli jirteen labada qof dab in loo kala shida ma milyuun hadalka ay ku hadlayso ila dhageysta waxay leedahay ma doonayo anigu inaan ashkateeyo iyo dad kale waxay la dhageysta ma rabee balaayadu dhashay mu iga dhamaada waqtiga milyuun waxay leedahay dacwadiisa ma rabo waxa waqtiga mu iga dhamaado war gaadsan oo filinkaas inuu inagu socda gaadsan mid baan ni sheegaya gabadhan gaadsan idinka ay niga soo jeeda waa gabadh dira gabadha wiilka hadda u dhaxday hal mid baan ni sheegaya gaadsan dad wanaagsan baa aan jirteen gabadhiina ninkeeda waxa uu sheegtay ninka ha tiraado waan anadi guursatay buuqiyo waxa ma doonayo maskaxdana ay qarxin waa inay tiraada gabadhu naagta haddaad sideeda doonaysid anu waan kaa baxayaa bannaanka ku adeegso bannaanka ku ereeriyo haddii kale anigu haddaan guur galay toddobagalkii baan ku jiraa ma doonayo maskaxdu inay qarxado waa ina gabadha saa gaadsan wax u sheega gabadha walaalayaal gaadsan haddaad maqlaysiin gabadha wax u sheega xukunkeyga siiya dadkaan soo qabanaya haddaba haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato fadlan subscribe nagu sharaf riixi gambalaalka cas oo rikuma channelka noqo qofka ugu horeeya ay soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka xiisaha leh ee kala duwan aan halkan kusoo gudbiyo haddii aad horey noola joogtayna aad iyo aad baad umahadsan tahay tan iyo muuqaalkan mid lamida intaan ku kulmayno aad iyo aad baad umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu